horta waxyaabaha noocaas oo kale waa waxyaabo sheeko xariir ah oo la sameeyay wax xaqiiqo ah ma aha nolosha iyo geerida waa laba marxalad oo kala duwan labadoodana ilaahay ayaa sameeyay qof walbana marka xaaladaas uu ku sugan yahay ayuu sidiisa ku yahay مثلا قف كدو نول يهاي أو صن لمنين معاملة دي يصير له الأقماعي إنه نول يهاي أي أرنتي سو أهانيسا هدول لنتنا إنه لنتاي أي أرنتي سو نقنيسا مركب ما دعي كرتو قف لنتاي إنه دي بنتو أصول لابتو سيدك قارئ يوعب صناعي اللي يوعب سينايو إنه أدون كان مركب الإمام يدو أن الجارين حل آخر قيامه تذكر صوب بحن لها ساس إلهي وحوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني dad aan halaagani oo dhintay xaraan waxa ka aan dhicaynin in dib u soo noqdaan hadii ay soo noqonayaan waxyaabo badan oo xaqiiqo ah oo dadku dhan ay wada arkaan ayaa dhici lahaydoo qof walba waxa la ilaha ama aabihi haduu dhintay ama hooyadii dhimatay ama qaraabo dhimatay ayaa u imaaday hebel oo yani caadi loo arki lahaa laakiin kulluhu waa wax khiyaal ah yani wax wal isaga sheekay marka dadka noocaas oo kale ama ka cabsanay aakhirada inay ku soo noqdaan yani waxay u baahan yihiin in laga wacyi geliyo loo sheego la yiraahdo ha ka cabsanina maxaa yeelay qofkan uu tagay inuu dib u soo noqdana ma dhacayso waxyaabahan dadku ay iska dhaadhiciyaan waa wax nafsiyan iyo sheeka hada ka hor dadku ay alifeen oo dadka wax alifooda u tahay yani khiyaali wax leeyahay ku alifaan oo sheekooyinkan hadda buugaagta lagu qoro yani dadka markii ama raadi laga akhrinayo ama buuga laga akhrisanayo yani waxay u ekaanaysaa sida wax dhacay oo kale nin oo qoraa ah oo yani intuu miis kor fariistay oo warqad iyo buug qaatay ayuu sameeyay hebel baalka maray saasoo noqday si caadifada marka qaarkood loo qoraya dadka marka aan ogeyn sida loo qoro riwaayadaha waxay u maleynayaan xaqiiqo dhacday oo kale oo yani waxna ay dhageysteen marka waa noocaas oo kale dadka loogu sheekeeyay hadda koor basaan dhacday qubuuraha laga soo baxay qofba qubuuraha laga soo raacay waxyaabo jiilba jiil ay isu gudbeen ay jireen laakiin markii cilmiga loo bandhigo ama kan sayniska ha aado qof haduu mar dhinto inuu soo noqonina ama xayalay nafti baa ka baxday dhakhtarka ugu dhakhtarsan hadii la keeno sharabo waliya maqlay ama kaniin ama irbad qof dhintay intuu dhakhtar u qoray lagu duray ama liqsiyay oo qofkii uu soo istaagay oo soo noolaaday ma jirto sida uu soo soo noolaanayeen dadku dhan wada ogyihiin qof dhintay uu soo noolaanay ay arintu tahay waxan kale oo ah habeenka jumcada dib u soo noqonayaan iyo hadad qubuuraha ag marto maxay way kugu soo baxayaan iyo qof baa qabri ka soo baxayo waa sheekooyin maxay ilmaha lagu cabsiyo ama maxay dadka loo qurxiyo sheekooyinka laakiin xaqiiqad dhabta markii la gaaro waxa ma marka dadka ka cabsanaya waxba inay ka cabsanin iimaankooda iyo kalsoonidooda ay diinta ku qabaan ilaahay ha ku kalsoonaadeen alaysa Allahu bikaafin abduhu ilaahay adoomihiisa miisan ku filan uu ku filan yahay marka waa waxan aqoon daridu ay keenaysay wax ka jira male in qof dhintay intuu soo baxo marka dambana uu dadka dib ula tacaamulay haday saas tahay wax badan oo cilmi ayaa laga faa'iideysan lahaa intii dadkaas la raadiyo yaa waxa laga waraysan lahaa qabriga waxa ka jira iyo wuxuu soo arkay iyo nin ri aakhirada yimid shir jiraad uu qaban lahaa marka wali lama arkin nin aakhira ka yimid shir jiraad aakhira ka qabanayo oo ka sheekaynay wixii meesha ku soo kulmay marka sheeka caruurta lagu cabsiyo inay dad waaweyn intay ka cabsadaan oo ay noloshooda xiriir u geliyaan yani waa waxan tusinaya kalsooni darro iyo aqoon darri diintuna ma ogolo in yani waxyaabo la ictiqaadiyo aan waxba yani ka jirin wixii dhib iyo wixii dheef oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka u qadara al-iimaan bil qadaa wal qadar ayaa loo baahan yahay marka dadka noocyadaas ay shaki uga jiro waa ma yara aakhiraadku kugu soo baxaan ama ku qabsadaan ama wax ka qaataan waa wax un khiyaali ah wax xaqiiqo ama jiro ama aan ay iska daayeen shaadil hay waxa jirta dad dhahay waan la ciidiyay anagu hurdeeno kale anagu jiifno ama waxaas waxa ma arkay cabsida noocaas kala ama maqalba ay kulay dabcan waxay dareen qalab waxaan ahtab ciidan loo qabtay habeenkii dad agdegan kala qabooro kala waxay sheegaan in la ciidiyo habeenkii arintaas marka ma arin oo ciidintii sidii aqraadkii misoo wax u qarweyn ayagu horta aqraadday soo bixi karaan oo ciidin karaan gudku kuma ina jireen quraacay soo doonan lahaayeen qaday soo doonan lahaayeen marka waxay ciidin karaan ma jirto qofkana waxa laga yaabaa markuu seexanay ayaa nafsadiisa waxay ku sheekeynaysay aakhiraadkaas ama wuxuu dhageystaa laga yaabaa markii ugu dambeysay sheekooyin cabsi leh oo noocaas oo kala ah oo waxay noocaas oo kala marka uu riyoonaya yani way dhacdaa qofka midna riyo
adoo lagu bursanayo oo yani ama wax kugu soo baxay waxa aad ka cabsanaysay way dhacdaa in maxay ahayd qofku ku riyoodo marka labaha loo kala saaro wax riya ah oo saasaan ku riyooday oo waxyaabo naftu marka qaarkood ay dhibsanayso way dhacdaa inuu ku riyoodo oo xadiisku leeyahay haduu qofkiin arko wax uu dhibsanayo yani dhanka haysaga tufo midig iyo bidix oo yani a'uud billahi minash shaytaan rajiim ha yiraahdo qofna yuusan uga sheekayn wixii xumaa uu arkay haduu wax khayr ah uu yani uu ku riyoodana يعني خير كاس dadka la wadaago marka riyo wax ku saabsan wax laga naxan way noqon kartaa wax yani lagu farxana way noqon kartaa wixii riyo waa baab laakiin yoon riyo ahayn in laga dhigo si xaqiiqi ah oo la yiraahdo mesela anaaba soo jeeday oo wala ii imaaday oo wala ii ceejiyay markaas aan rabay inaan sawir ka qaado ku ceejinayo hal picture oo Facebook uu soo dhigo oo dhahaya si war degdeg ah si la ii ceejiyay bal fiirsada mana la keeni karo taas marka xaqiiqada in lagu tacaamalo wax la aamin iska dhaciyaan